halkani waa xarunta cilaajka isku daweynta Quraanka Kariimka iyo sunnada Nabiga ee Daaru towba waxaana maalin kasta la keenaa si loo quraan saaro loona daweeyo boqolaal qof oo u badan haween kuwaas oo laga daweeyo xanuunada sixirka jinka iyo isha oo farabaan ku haya shacabka Soomaaliyeed gaar ahaan haweenka oo u nugul xanuunada noocan ah iyaduna halkaas ay ku caafimaadeen dad badan oo xanuunadaasi ay saameeyeen haddaba maamulka xarunta isku daweynta Quraanka Kariimka iyo sunnada Nabiga ee Daaru towba Sheekh Abdullaahi Dawlo ayaa maanta shaaciyey in muddo hal isbuuc la hakiyey shaqada xarunta sababa la xiriira faafitaanka cudurka Corana Virus. Sheekh Abdullaahi Dawlo ayaa sheegay in muddadaasi la isdiiwaan gelin karo kadibna shaqadu halkeedii ka sii socon doonto. halkan waa xarunta cilaajka Daaru towba insha Allah ta'ala bariyahan dhan waxay isla dhexmarayay cudur maaragtay aad iyo aad u halis badan sida maaragtay dhaqaatiirta iyo culimada inta ay sheegeen ay la yiraahdo maaragtay Corona Virus runtii dunida dhan aad ugu faafay ummadina tihi maaragtay ku riday la sheegayna hadda in maaragtay wadanka Soomaaliya qayb ka mid ah soo gaaray waxaana cilaaminay shalay tooro ee Arbacada in shaqadii maaragtay maanta oo Khamiis ah ee 19 bisha 2023 inay maaragtay xarunta hakad ay ku imanayo ama hakad la gelinayo muddo 7 ah wixii ka dambeeyay shaqada ay si bilaabanayso adaama cudurka la yiri wadanka Soomaaliya qayb ka mid ah soo galay oo madaxdiina amar ay ku bixiday iyo baaq maaragtay soo jeeday in maaragtay meelaha mujtamacaadka la kala fogaado oo ummadda maaragtay ay kala fogaadaan halkan waxay ka mid tahay meelaha dadka ugu kulunka badan runtii maalintii markay ugu yartaadeen meeshan dad ma iman 700 ilaa 800 qof ay imanaysa hadii kala 1000 ilaa 1000 iyo dhowr qof oo imanaysa marka maadaama talooyinkii madaxdii culimadii intiiba maaragtay dhaqaatiirtii ay bixiyeen baan mesmeri idiguna qaybtiini ka qaadataan maadaama halkan bulshada isugu imanayso si dadkii loo kala ilaaliyo mujtamacaadka ilaahay baa waxa ilaalin kara laakiin waa ixtiyaad iyo dadaal waxaan ilaahay ka baryay subhanahu wa ta'ala in Allah intii gaara oo cudurkaasi saameeyay hadduu ilaahay subhanahu wa ta'ala hidaayaha nula doonay waxaan ilaahay subhanahu wa ta'ala yeesoo hanuuniyo cudurka Allah ka dulqaado in Allah intii oo muslimiina mu'miniina muwahhidiina daafaha caalamka meel laga sheedoonaba ku noolaadaan ilaahay subhanahu wa ta'ala inuu maaraytahay sharta iyo keydka kufaarta iyo asxaab shurti ilaahay garab mariyo halkan waa xarunta cilaajka Daaru towba maanta waa Khamiis waan xiraynaa waxaan ku xiraynaa waxay tahay talooyinkii hore culimada u bixisay iyo maaragtay madaxda ay u bixiyeen inkastoo maaragtay adduunyada dadka ay joogaan qafladii ay ka badatay oo Quraanka Ilaahay subhanahu wa ta'ala inuu daaweeyahay la diloobay oo qaflad maaragtay ay nagashay haddana amarka baan u joojinay billahi albaari toddobaadkan uu joogsanaya cilaajka sabtiga soo socda insha Allah ta'ala kan markan kalena waan bilaabi doonaa billahi albaari inta ka horeysan waxa sii socon doona qaabilaasho dadka sidoo kale direenaan u qaabilay billahi albaari iyo diiwaan gelin baan sii wada doonaa billahi albaari in kana loo soo insha Allah ta'ala wa Maxamed Cabdi Bariye dalka TV Muqdisho.